علي شيء قبر صوماليات ونين مريكاني قبوه وعرفور بدن ولا شيء ودمان توضف صومالي وقاعد أقول السي ولا عضي بعد ذن هو يدود ما وحي قوانصت إن أنا يقول جواب هدي وف صومالي وحكوا يدين وايو والمان مريكاني علي لكن هو يدا الصومالي وحكوا ده شيء إن المهدا يدو ما في إنجليزي لا وقبل قانون وحبرتي لكن وحي الربط اللغة ده إنه يبرته دبتنا المهدي يرى وحي كوب لو ده يدو إنه في الصومالي كله هذا شو أبهودنا في إنجليزي كله هذا المه يرسقه بايلينج ولا بوجوبه أبيهنا في إنجليزي كله هذا يا هو يدينا في الصومالي كله هذا يا أنت صعب هو شيء ما أنت في الصومالي كله هذا يا هدي أفكاري وحكوي دي ويقول قولي سام لما هذا شو أنا كمان هم بيلا دقف كلا الله هذا يا دبت أنا وحول بوكو قصبر هذا شو هو يد حلول ولا سمايين وهو هطلع محي يغير حكلا لك تجربة وسمايين نعربت واقوية هنا الماء يقول علي يحاسك يسوي حكوي أدوكو لهجتك كل هذا إن اللبنانيين بانوا مالينيا لهجته ذا محلي جاه أدو كل هذا الجودة أنا ونفس حد وما كل هذا ليه علمه سيسوي فصحى كل هذا سلامتنا لهجته كل هذا الشيء علمه سدحجر مركو مريو فصحى هي اللهجة بس في عمبو يقانا أبيه مركو الله هذا ليه اللغة العربية الفصحى تقرأ كوكوريو كهذا ليه هو يدي مركو الله هذا ليه أفعرب كان تشبنا سوق لقى هذا ليه odayga wuxuu leeyahay lecture buu ka jeedinaya oo kaga warramayo waxyaabaha qariibka ah aan arkay wax ka mid ah buu yiri hooyadii baa oranaysa aabaha waxa ku dheh iyada lahjad bay u sheegaysaa markiiba intuu tarjumaaniga fasaxadun bay u sheegayaa buu leeyahay way aabaha fasaxadu ma barta waxa kale oo lagu hadlaa ma jirto luqada carabiga fasaxa buu ku hadlaya waxa dib nagu noqotay un buu yiri maadaama aanu laba nin nahay luqada carabeedna dhadig iyo rag ay leedahay maanan haysan buu leeyahay luqadii qaybteedii dhadiga ka warramaysa ciidankooda markii dambe ilaahay siiyay buu yiri markuu kan saddex jir marayay mawluud kala helay oo yar oo inana negotiation-kii inantii baa iyana wararkii ka soo qayb gashay saddexdeeduba fusxadaan ku wada hadalnaa buu leeyahay waxaan uga dan leeyahay ilmuhu intuu yariyey haddaad ku tijaabiso afkaas dhegtiisana uu ku dhaco guriga marka la hadlayana uu afkaa maqlo waayo ilmuhu markuu yariyey ee koowaad afka wuu urursadaa wixii dhegtiisu waayo noloshoo dhan muxaakaa buu ku bartaa isku day noloshoo dhan isku day buu ku bartaa marka hore wuu ururiyaa dabeetana waxaa bilaabantay inuu afka fahmo keen baad leedahay wuu keenayaa hoobaad leedahay laakiin isagu ma odhan karo waayo weli makhaarijtii ma helin khaarij alxuruf halka soo baxaysay tijaabuu bilaabaa markaa inuu xarafka meeshii laga soo saari lahaa yidhaahdo si qaldan buu ku dhawaaqaa inta hore oo dhan carruurtu erayadii oo qaldan oo aan si sax ahayn inta hore hooyadoodu ba afkarata oo tidhaahdaa waxaasuu rabaa saasuu ku leeyahay waayo makhrajku si qaldan ugu dhawaaqaya laakiin tajribadu wadaa muddo markuu tijaabada wado marka dambe eraygii oo dhammaystiran oo sax u soo tuura inta hore ilaa 200 oo eray buu bartaa intaasuu isku celceliyaa ilaa 4 jir markuu soo gaadho wuxuu tiradu way sii badataa ilaa 700 eray waxbay soo gaadhaa 5 jir 6 jir markuu gaadhana waxaa laga yaabaa luqada inteedii ugu badnayd inuu hayo idan waalidku halkaad adigu af sawaaxili jajaban kula hadli lahayd af soomaali fasiixa kula hadal isagaa baranaya inagu markaynu hadlayno sawaaxili jajaban ma ku hadashaan soo maaha marka intaad sawaaxili jajaban kula hadli lahayd aduu af soomaali saxa kula hadal isaguna wuxuu baranayaa maxay af soomaaligaa saxa ha ka warwarin sawaaxiligana berrito kuwuu la cayaaraya carruurtaabuu ka baranaya kuwan dabadda uu kula cayaaraya ama iskuulka markuu taga makaan berru toos isagana uu baranaya laakiin tiisa kale waa inuu sugaa intuu guriga joogo taanu meel laba u bixinay guriga joogo waa inuu afkiisa hooyo u sugi karaa afkuna da waa xidhiidhka waalidku wax ugu sheegi karaba ilmuhu dhalay af kale kuma sheegi karti kiinebaa af kale ku gudan kara wuxuu rabay oo dhan hindida bay yidhaahdeen afku urdugu kama lumo indiya marka la joogo waa meel diimo badan
oo afaf badan kumaankum af lagu hadlo kumaankum diimoodyaaliin saadaraaddeed qofku markuu waddankiisa joogay buu feejigaayo soo jeeday markuu indiya joogay buu wuxuu qabay dagaal ah afeed iyo diimeedba dabeetana wuxuu ahaa qof feejigoo soo jeeda bilcagsi innagu markaynu Soomaali nahay afka kamaynan fakari jirinoo dadkoo dhammi af qurun buu ku hadli jiray diinta kamaynan fakari jirinoo dadkoo dhammi diin quru wada haystay oo ilmaha macallin quraanka iyo iskuulka kuwa jooga iyo kuwaasaa diinta u dhigayay aabbuhu diinba uma sheegi jirin markaynu halkan nimi xaggaa markaynu joognay markaa aabbuhu wuxuu ka adkaa inuu ilmahaasi aanu gaajoone wuxuu cunay inuu guriga keeno hooyaduna waxay ka adkayd inay u kariso oo nadiifiso oo dharka u maydho oo hagaajiso intan ama wixii af iyo waxbarasho iyo bulshadoo dhan buu wadaagay meelahan markaynu nimina sidii baynu inagu u fakarnaa adayguna beriskiiba ku maqan yihiin islaantuna way karinaysaa oo yaaba baraya kan markaa afka iyo diinta iyo dhaqanka iyo hidaayaa baraya laakiin ninka hindigii markuu halkaa joogayna isagaa diintiisa ilaashanayay oo afkiisa ilaashanayay oo dhaqankiisa ilaashanayay oo waayo jaarkiisa af kale iyo diin kale haystay saa daraaddeed uu ka ilaashanayay iskuul gaara buu lahaa af gaara buu lahaa dhaqan gaara buu lahaa dad gaaruu ahaa oo dad kale la degan halkan markuu yimina isagu waa sidiisii waa ninkii ilaashanayay afkiisa iyo diintiisa laakiin adigu waxaad tidhi xayalla dee uun dadka ha ka mid noqdo dee maahmaaheennana qaar qalloocan baaba iskaga jirayoo meel lagu ilaayay haddaad tagta ishaa la iska ridaayo carradaad tagtaa camalkeed la yeeshaayo mala hadda inaynu dadka ku daransanno anigu waxaan is leeyahay dadkaba kamaynan yaraaneene ummadahaynu biirinayn